waxaa laga soo gudbay berigii suuq afki iyo qori iyo xabad iyo jamad wax lagu qaadan jiray waa laga soo gudbay mana taageeri doono damaca siyaasa dadka uu ku jiro waxaan leeyahay ilaahay baan ku dhaarshay ka soo laabta ummadiina raaca waxaan leeyahay haddana al-sunna wal jamaaca dadku sheeca maahan waa al-sunna wal jamaaca meeshan diintii Sheekh Cali Samatar waxba yaa dadkan kitaabada laga raacday Sheekh Yuusuf iyo waxa laga raacday ninka la yiraahdo Sheekh Cali Jamcaale culimadaas laga soo raacday dadkii ka raacday baa tahay dadkiina al-sunna sheeganayaan dadkii ka raacay baa tiin kitaabada ka wax ka raacday wax gaar ah tiin male magaca al-sunna hadaad siiseen oo kaligiin isku magacowdeen galmudug ka darsanina in leeyahay galmudug hadana ku darsanina waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo markaan leeyahay galmudug ha ku darsanina waxaan maqlahay waxa la galmudug waxay dhistay mataqaana gudi waxay dhistay xagga waxba la sheegay waxa shiray xildhibaano waxba kama jiraan waxaan cadaynaynaa caalamka u sheegaynaa dawladda dhaxana u sheegaynaa gudigu waa gudigii uu soo dhisay muxuu ahaa sheeg gudiga ay soo dhistay dawladdu wasaaradda maaragtay arrimaha gudiga ay soo dhistay baa gudiga asagaan isku raacsanahay asagaan muran ka jirin wixii kaloo la sheegaa been weeye iyo wax ku gooso dawladda dhaxana waxaan leenahay dastuurka galmudug dastuur bay leedahay qayb bay leedahay ilaahay baan ku dhaarshay ayada nagu ilaasha dastuurka galmudug nagu ilaasha cidii ka gudubsan qabta cidii ku sugan ku garabsiiya dastuurka galmudug nagu ilaaliya dawladda dhaxana intaas aan leeyahay caqabada u horeysa waxaan malaynayaa waxa weeye culimada diinka al-sunna wal jamaaca waxa la socoteen culimadeena gaar ahaan akhyaartan joogta meesha la yiraahdo inji waragii dawladda soo dhaweeyay waxaan malaynayaa xuquuqdii siyaasadeed ee ummadda galmudug oo dhan ay lahayd iyaga ayaa laga hadlay dawladda ayadii ku sharaftay reer galmudug oo dhanna raalli bay uga noqdeen macnaha waa la waday maanta meesha aan arkayno iyo in lagu dhurayo meesha la yiraahdo inji iyo meelo kale ayay bahashu maraysaa mana aanan filayn xaqiiqatan mana qabato waxaan leenahay culimadaas akhyaarta ah oo deegaankan ah waxaan isleeyahay aniga u xaqiiqin inta anigu aan dawladda ku leeyahay ama dadkan aan ku leeyahay unbay ku leeyihiin wax ka badan kuma laha aniga iyagu waa u seenahay waayo isku qoonda ayaan nahay horena waan u sheegay waxaan ku iri waxay galmudug ku dhisan tahay hab heshiis bulsho ah oo qabiilo ah oo qaybsi ah inta anigu aan ku leeyahay oo xuquuqa unbay ku leeyihiin wax ka badan kuma leh wax ka yarna kuma leh laakiin maanta waa arkaysi nasiib darro ajandaha la ololeynayo waxaan isleeyahay taas dhigaha bahda iyo dhammaan reer galmudug ma maqli karaan umana dulqaadan karaan waan ka waaninaynaa waxaana u baaqayaa annagu ma garanayna iyaga iyo dawladda Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen annagu hadda macnaha ma garanayno wax la qaranayo kulli ma ogin annagu laakiin waxaan ka rajaynaynaa ama ugu baaqaynaa wixii lagu heshiiyey oo la isla gartay si tartiib ah inay isku xalisaan ayagoo gacmaha is haysta wax qaybsay isfahamsan in dadkii deegaanka dhex yimaadaan halkaas baashal ka sii ambaqaado inta ka bacdi waxaa jira niman akhyaara oo mucaarad la yiraahdo oo qaarkood madaxweynayaal hore ahaan jireen axsaab qaar ay yihiin waa nimankii tagay Kismaayo ee 4 milyan ee Kismaayo ama Jubbaland guud ahaan degan u lagday ninka la yiraahdo Axmed Madoobe ayuu ku xumeynaya dawladda Soomaaliyeed xuquuqdii dastuuriga ah ee shacabka 4 milyan oo ay lahaayeen waxay macnaha hoos galiyeen ninka la yiraahdo Axmed Madoobe waad maqashiina maalin walba waxa ka cabanaya ninka la yiraahdo Daayir Amiin Jeeso xildhibaanka oo maalin walba ka qayliyaa Axmed Madoobe ayuu ku hayaa ayaa maanta dhismaha deegaankan ama galmudug maamulka galmudug la og yahay inay tahay maamul sabool ahay xaalado adag soo maray mucaarad iyo tafaaraar aysan ma taqaana in xamili karin dadka qofba geed laga soo bixiyay ayay dadkii kala geynayaan macnaha ayagoo adeegsanaya ama raadinaya dana ayagoo ay gaar u leeyihiin macnaha
dowladdana iyo dadkeena isku daraya maanta annagu barnaamijkaas ma aqbali karno mana qaadan karno waxaan ugu baaqayaa dhagaha dadka galmudug waxa la yidhi dhegta bini aadamku macnaha sayniska marka laga hadlayo waxay maqli kartaa jabaq u dhaxaysa 20 ilaa iyo 20 kun oo hertz heerka mucaarad ay gaarsiisan yihiin oo shacabka iyo dowladda isku dirayaan oo ay kala geynayaan dhagaha dadka galmudug ma maqli karaan waxaana laga rabaa beesha caawa meeshan joogto ee beesha cayr ee meesha isugu timid oo ka mid ah beelaha dega caasimadda ee reer galmudug inay kaalinteeda muujiso dareenkeeda inay muujiso macnaha inay dareenkeeda muujiso inta ka bacdi waxa sidoo kale jira niman akhyaar ah oo maaragtay ku soo bartay deegaankana ka soo jeeda hantidii qaranka waxa ku soo bartay mas'uuliyiin qaran soo ahaa jiray wasiirro soo ahaa jiray waxa soo dhan oo 24 saac deegaanka xumaantiisa iyo ma taqaanaa meelaha boogta ay kaliya sheegayaan macnaha haddii maanta roob ka doo abaar bay ka sheegayaan balo fiirso abaar bay ka sheegayaan ma qabato deegaanka ninka u dhashay waa inuu wax ku soo kordhiyaa hadduu wax ku soo kordhi waayo dadka asaga ziyaada ku ah asaga zaa'id ku ah waa inuu ka joogaa barnaamijka waa aan soo gunaanadayaa haddii ilaahay idmo waxaan kaloo baaq u dirayaa beesha caalamka beelaha galmudug waxay raalli ku yihiin inay maamul dhistaan maamul ay wada leeyihiin oo laguna dhiso habraaci dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu ay u soo dejiso doorashada ee dastuuriga ahay ee ummaddu isku ogoleed ee beelaha galmudug ay raalli ka wada ahaayeen inay wax ku dhistaan ayay diyaar u yihiin beeshaan la yidhaha beesha cayrna barnaamijkaasi waxay ka noqonaysaa hormuud raalliya marna ka tahay ku taageera shakhsi ku raaci mayno qof qalqaldanna ku raaci mayno qof mataqaanaa dadka dulaysanayana raaci mayno dadkana waxa uu leeyahay dad islaama oo ummatu maxamed ah oo tawxiidka ku dhashay kuna dhaqma oo aan doonayn in dhabaqa loocan loo horseedo intaasna waxaan rabnaa inaan maqashiino dadka islaamka beelaha annaga aan hawsha naga dhaxayso galmudug aan wadaagnana waxaan ugu yeeraynaa inaan is aragna odayaalkooda dhaqanka oon ka wada tashanno sida aan u maamulayno gobolkan la yidhaaho galmudug sida aan ku dhaqi lahayn oon ku wadi lahayn oo cadaalad aan ugu wada samayn lahayn intaasna waxaan ku soo dhawaynaynaa beelaha kale oo galmudugna la'ah galmudug waxaan ku soo dhawaynaynaa dadka islaamka waxaan ku soo dhawaynaynaa dowladda Soomaaliyeed waxaan ku soo dhawaynaynaa cadaaladaan ku soo dhawaynaynaa farsamaan ku soo dhawaynaynaa inaan laga leexan oo qofna aan wax gaara loo sameeyaan ku soo dhawaynaynaa hadaan nahay beeshaan cid gaara ma taageerayno cid gaarana ma wadano waxaan wadanaa cadaaladda in wax lagu dhaqo dadka islaamkana lagu soo dhaweeyo dhibaatada jirtana la iska dhaafo intaasaan ku soo dhawaynaynaa waxaan rabaa inaan caawo idin cadeeyo waxa la wareejiyay dadkii ciidankii iyo nidaamkii sheeganayay maamulka ahlus sunna wal jamaa ama galmudug ee deegaankan joogay ayaa si heshiis loo wareejiyay ciidankii iyo muxuu ahaay wixii shaqeynayay oo dhan caawad waxa lagu wareejiyay wixii dowladda federaalka Soomaaliya qaranka qaybihiisa kala duwan ahay waa dad la qarameeyo qarannimadii ayaa lagu wareejiyay heshiiskii ahayd heshiiska ogsoontiin qaybo badan ayuu ka koobnaay qaybahaas badan waxna waa fuleen waxna muxuu ahaay way dhiman yihiin oo waa la fulinayaa waxaan rabaa marka su'aasha meesha ku jirta inaan cadeeyo waxa ay tahay waxaan idin sheegayaa horta waa maamaadayda hore ee hasha karta diidaysa meelo daldaloosho ay ka fiirisaa horta waxaan idin sheegayaa heshiisku inuu buro ama galmudug inaysan dhismin ayaa la rabaa waana dad shakhsiyaad oo qof iyo laba ah waxa diidan oo ka soo horjeeday taas waxaan rabaa horta in sidaas loo ogaado dadka intii badneed hadday maamul ahaayeen hadday ciidan ahaayeen haddii muxuu ahay dadkii waxgaradka ahaayeen waxaa la qaraacay systemkii heshiiska oo ah wixii qaranka dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ciidamada inay qaramoobaan wixii galmudugna galmudug ay dhistaan lagu midaysan yahay lagu dhayahay waxaan rabaa marka dad yar oo kooban ayaa diiday waxaan rabaa midda dadka la dhaliilaayo oo dadka u akhyaarnaasan lagu dhaliilaayo dadku ay laga yaabo inay yiraahdaan muxuu ahay annagu sida aan wax u rabno ama sida la yahay inta badan looma sheegi karo wax badan lama dhigi karo
ayagana waxaa laga yaabaa waxaan laga mudnayn inaan laga heli karin waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto horta dadku isla mid ma ahan dadka la wada dhaliilayaahi dad laftirkoodu dhiban ayaa ka mid ah dad laftirkoodu dhiban ayaa ka mid ah oo caawa adiga inaad hadasho oo aad mowqifkaaga sheegto oo xirnimadaada aad sheegto dad ayagu dhiban oo intaas sheegi karinin ayaa horta ka mid ah waan caddaa doonta ogaa doontaan haddii ilaahay yidhaahdo dad badanona way ka warqabaan waxaan rabaa horta in ayadaasna wax la reebo oo muxuu ahay sidaas loo ogaado dadku inta badan inay ogyihiin laga yaabaa ugu dambayntii waxaan rabaa dadkayga inaan la hadlo aniga waxaan soo jeedinayaa dadka bahda meeshaan fadhisay gafba ha igu ahaatee inaa calaa cashiin ma lihidin inaa calaa cashiin oo dhahdaan dowladnimadaan rabnaa dowladnimadaan yeelaynaa sidaasaa la yeelo inaad dhahdaan ma lihidin waxaad leedihiin inaad 11 beelood ayaad beel ka tihiin gogoshii ayaa nahay dadka dhan isugu soo hiranayay haddii intaana ay hagaagto ama magacaas oo hagaago waa la raacay dadkii calaacal lahay ma tiidin waxaan idin caddaynaynaa hadday cudud ahayd haddii nidaam ay ahayd haddii dadkii administrationka ayoo gadaal loo idaayay oo lalahay systemkii halkan ka jiray sidii la rababa laga kala aaminsanaadee dowladda federaalka ay taageersan yihiin ayada ayay ciidan u yihiin ayada ayay cudud u yihiin waxaan rabnaa calaacalkii inaad inta iska daysaan inta waalkii muxuu ahay mowqifka aad leedihiin ood qaadataan oo aad dowladda garab istaagtaan oo aad dhahdaan dowladnimada Soomaaliya ayaan taageersannahay galmudug loo dhayaha meeshaan laga dhisayaa ilaa beelaha kale qof walba ayba wixii uu ku lahay u soo doonto dhuusamareed inaad sidaas dhahdaan aan idinka rabaa